mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Somaliland ayaa daahfuray qaybinta siirka ama abuurka wadaniga ah oo wasaaraddu ugu talagashay in la gaarsiiyo beeraleyda gobolada Maroodijeex, Sanaag iyo Buuhoodle si ay u beertaan xilli roobaadka. Siirkan oo ay soo saartay wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Somaliland ayaa ku talagal ku yahay inay ka faa'iideystaan beeraleyda dalku. Madashii lagu daafurayay munaasabadaasi waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha, agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo xubno ka mid ah agaasimo waaxidyada iyo howlwadeennada ka shaqeynaya qaybinta siirkaasi. Shabcaan Mawlid Diiriye oo agaasimaha waaxda Somseed ee wasaaradda horumarinta beeraha iyo agaasimaha waaxda fidinta Ali Cabdullaahi ayaa ugu horreyn halkaasi ka warramay waxaana ay ka warbixiyeen siirkan. saaka waxaynu joognaa xarunta wasaaradda beeraha oo lagu soo diyaariyay seed muddo dhan 3 sanadood iyo badh ay wasaaradda beeruhu ka soo saartay gobolada Maroodijeex, Awdal iyo Gabiley. mashruucaasoo loogu magacdaray Somaliland Seed ama Soma Seed wuxuu socday muddadaas wuxuu soo bilaabmay 2016 waxaana soo saareen 3 sanadood iyo barka 36 tan oo isugu jira dalaga haruurka, galeyda iyo digirta. 36 tan oo ay wasaaraddu ku kaydinaysay xarunta cilmi baadhista ee abuuriin waxay saaka wasaaradda horumarinta beeruhu garatay inay u qaybiso beeraleyda dalka guud ahaan iyadoo wasaaradduna la hadhay kayd ay halka kaga sii wadi karto. sida Shabcaan sheegtay saaka halkan waxaan joognaa inaynu dirno gawaadhidii u kala baxaysay gobolada Buuhoodle, Sanaag iyo gobolka Maroodijeex kuwaas oo waxa weeye sida abuurka wadaniga ah ee laga soo saaray wadanka ee wasaaradda horumarinta beeruhu ay gacanta ku haysay. waxa kale oo iyaguna saaka diyaara tiimamkii raaci lahaa 3 gaari ee daba taagan oo waxa weeye la shaqeyn lahaa oo siirka la qaybin lahaa. wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Muumin Seed oo ka hadlay madashaasi ayaa ka warramay mashaariicaha horumarineed ee lagu horumarinayo beeraleyda dalka iyo muhiimadda siirkan u leeyahay wax soo saarka dalka. maanta halkan waxa taagan 3 baabuur oo aan ku qaybinay siirkii dalka ka soo go'ay ay soo saartay waaxda Soma Seedku 3 sano ugu dambeeyay ay ku hawlanayd oo gaaray waqtigii loo qaybin lahaa shacabweynaha Somaliland ee ku hawlan dhinaca wax soo saarka. siirkan maanta la qaybinayaa awalan waa siirkii dalka ka soo go'ay ma siir dibadda inooga yimiday waa siirkii wadaniga ahaa ee dalka ka soo go'ay. waxa loo qaybinayaa waa 3 gobol waa gobolka Buuhoodle iyo gobolka Sanaag iyo Maroodijeex. 3 gobol ay 3 baabuur iyo tiimka wasaaradda oo iyaguna raaci doona ay geyn doonaan insha Allah ta'ala hadii la yiraahdo iyo ku qaybin doona dadka beeraleyda. siirka waxaan ugu digaynaa dadka beeraleyda loo geynayo iyadoo aqoon-yahanada wasaaraddu ay u sheegi doonaan dadka deegaanka maaha ku loo isticmaalayo in la cuno. siirkan hadda waxa weeye waa kii la beeri lahaa maaha siirkii la cuni lahaa. يعني dadku muxuu ahay u isticmaalin inay muxuu ahay inay cunaan u isticmaalaan taa waxa mas'uuliyadeeda iska leh tiimka aqoon-yahanka raaci doona baabuurta iyo dadku waxay u sheegi doonaan anaguna imkaan fariin halkan uga dirayaa inaanu cunaan siirka loo isticmaalin laakiin loo isticmaalayo in la beero hadii la yiraahdo. runtii waa sharaf bay noo tahay maanta iyo karaamo iyo noo tahay waana markii ugu horeysay ee wasaaradda horumarinta beeruhu ay siir qaybiso way taasina waa dadaalka iyo juhdiga ay wasaaraddu runtii gelisay shaqada. dhanka kale wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland waxa uu bulshada reer Somaliland uga digay roobab mahiigaan ah oo la saadaalinayo in maalmaha soo socda ay ka da'aan dalka. waxaan halkan iyadna baaq uga dirayaa berri hadii la yiraahdo 19 April iyo 20ka muxuu April waxay nagu soo aadan sida ay saadaashu sheegtay roobab aad u waaweyn oo runtii ku aadan waliba magaalada Sheekh iyo Hargeysa iyo muxuu ahay Maroodijeex iyo Awdal. sidaa darteed waxaan ka codsanayaa dadka deegaanada iyo muxuu ahay baraha kantaroolada ciidamada qalabka sida ay joogaba waxaan ka codsanaynaa inay hadii la yiraahdo ilaaliyaan muxuu ahay baabuurta
iyo muxuu ahaay dadka isku gooshaya labada gobolada isku maraya in laga ilaaliyo inay ku haligmaan dooxyada biyo ay mari doonaan iyadoo la qiyaasay roobabka imika inoo da'aya labada maalmood lagu qiyaasay inuu 50 mm gaarayo 50 mm marka loo eego waa roobabka waaweyn waa roobab aad u waaweyn weeyi marka waxaan uga digaynaa dadka shacabka ee baabuurta raacaya ee gobolada isku maraya inay aad iyo aad uga digtoonaadaan waqtiyada ay duxiis socdaan ay is ilaaliyaan. Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur, telefishinka qaranka Soomaaliland, Hargeysa.